بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديال كسو دوادا برنامجka maxaa cusub oo caawin kugu soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha kale ee ka cusub caawa qodobada barnaamijkeedu kugu haynana waxaa kamid ah maxaa ka jira in Britain laga bilaabi doono baaritaano la xiriira saameynta Israel ee go'aanada siyaasadeed ee dowladda haddii baarlamaanku ansixiyo codsiga ka yimid dadweynaha kulanka bishan loo madlan yahay maxaa ka soo bixi kara waa maxay se waxa xukuumadda Starmer ee xisbiga shaqaaluhu ay ku weydiiyay taageeradeeda Israel afayna ku aadan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa muxuu Sacuudigu sameynayaa si uu uga hortago faragelinta gobolka ee Israel sida uu qaabeynaya isku dheelitirka bariga dhexe maxayse yihiin kulamada isugu keeni kara miiska dalalka Turkiga Masar Pakistan iyo kuwa kale Israel oo laga yaabay inay ku dhacdo dabinka Hezbollah kadib balaarinteeda howlgallada ka dhanka ah ee koonfurta Lebanon kuwaasi oo iska caabin adag ay kala kulmayso xoogagga Hezbollah ee dagaalka kula jira caawa barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa waxa qubaradu ka tiri dabinkan isfiidinta Israel oo ugu ooman qabsashada deegaano hor leh iyo Netanyahu oo qorshe cusub ciidamada u saaray miiska dhammaan qodobadan oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena caawa ee maxaa cusub bariga dhexe ayaa qorshayaal cusub laga karkarinayaa iyadoo Sacuudi Carabiya ay ku howlan tahay ka shaqaynta qaabab ama tallaabooyin sahlaya sidii ay uga hortagi lahayd faragelinta Israel ee gobolka iyadoo boqortooyadu ay qaaday tallaabooyin dib u qaabeynaya isku dheelitirka awoodaha bariga dhexe suxufiga iyo qoraaga caanka ee Sacuudiga ah ee Daawud al-Sharyaan ayaa ku tilmaamay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyay ee Sacuudiga gaar ahaan isugu keenista miiska Masar Turkiga iyo Pakistan inay wax ka badan oo kaliya maareynta hal dhibaato oo degdeg ah ay tahay qoraal uu ku daabacay barihiisa bulshada ayuu Sharyaan ku adkeeyay in dadaalada boqortooyada ay ku ururinayso quwadaha gobolka ay ka turjumayaan aragti istiraatiijiyadeed oo qoto dheer laguna dhisayo nidaam goboleed oo cusub oo bariga dhexe ah Al-Sharyaan ayaa xusay in mabda'a lahaanshiyaha gobolka ee Riyadh ay qaadatay uu ka dhigan yahay in dalalka gobolka ay noqdaan kuwa ugu horeeya uguna dambeeya ee go'aanada ka gaara xalinta dhibaatooyinka jira iyagoo ka fogaanaya isku tiirsanaanta quwadaha dibadda ama aragti amni oo ciriiri ah marka Sacuudi Carabiya Masar Turkiga iyo Pakistan ay ku kulmaan hal miis iyagoo ku saleynaya mabda'a lahaanshiyaha gobolka arrintu waxay dhaafaysaa ayuu yiri maareynta dhibaatooyinka isagoo hadalkiisa sii raaciyay inay jirto garasho cad oo muujinaysa in gobolka loo jeeyo nidaam goboleed oo cusub oo Israel ay hogaaminayaan waxaana uu sharaxay in Riyadh ay sameynayso oo ay muujinayso in ay raadinayso isku dheelitir cusub oo ilaalinaya danaha carabta iyo islaamka islamarkaana ka hortagaya in mustaqbalka bariga dhexe lagu soo koobo aragti amni oo Israel kaliya ay hogaaminayso Al-Sharyaan ayaa waxa uu sidoo kale xusay hadallada uu maalmo ka hor jeediyay Turki al-Faysal kuwaasi oo kaga digay khatarta ah in gobolka lagu maamulo aragtida Israel isagoo sheegay in taasi ay carabta ka dhigi doonto kuwa kaliya qaata go'aanada halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa ka qayb qaata go'aanada sameyntooda Al-Sharyaan ayaa aaminsan in tallaabadan Sacuudiga ay muujinayso feejignaan istiraatiijiyadeed oo hore taasi oo ka turjumaysa faham qoto dheer oo ku saabsan isbedelada waaweyn ee juqraafi siyaasadeedka gobolka waxaana intaasi uu ku daray in boqortooyadu aysan ku ekaan kaliya ka jawaabista dhibaatooyinka balse ay ka shaqaynayso dhismaha isku dheelitiro cusub oo ka hortaga hal dhinac inuu helo awood xad dhaafa islamarkaana ilaalinaya danaha dalalka waaweyn ee carabta iyo islaamka hadaladan ayaana imaanaya xilli Sacuudi Carabiya ay xoojinayso dadaalada lagu kordhinayo iskaashiga dalalka gobolka dhinacyada amniga dhaqaalaha ama xasiloonida siyaasadeed Masar Turkiga iyo Pakistan ayaana kamid ah dalalka islaamka ee ugu miisaanka weyn dhinacyada istiraatiijiyadda militariga iyo dhaqaalaha taasi oo ka dhigayso isu keenistooda qaab dhismeedka Sacuudiga tallaabo leh muhiimad qoto dheer dhaqdhaqaaqyada Sacuudiga waxay muujinayaan rabitaan lagu dhisayo nidaam goboleed oo dheellitiran oo ku salaysan wada hadal iyo iskaashi halkii lagu tiirsanaan lahaa isbahaysiyo dibadeed ama aragti amni oo hal dhinac ka rarba tanina waxay waafaqsan tahay himilada Sacuudiga 2030 oo diblomaasiyadda firfircoon iyo isku dheelitirka istiraatiijiyadeed ka dhigaya mudnaanteeda ugu sareysa
وهاجاج هاتنا baarlamaanka dowladda UK ayaa la filayaa inuu yeesho kulan uu kaga doodayo bishan dhexdeeda ansixinta baaritaan lagu sameynayo Israa'iil inay saameyn ku leedahay in kale go'aanada dowladda. Xildhibaanada Britain ayaa lagu wadaa inay ka doodaan suurtagalnimada ah in la bilaabo baaritaanka lagu ogaanayo ilaa heerka ay Israa'iil saameyn ku leedahay go'aanada ay qaataan siyaasiyiinta Britain. Waxaana warbaahintu ay sheegtay in doodaasi la qaban doono dabayaaqada bishan coratay June kadib markii 116,000 oo qof ay saxiixeen codsi dalbanaya in baaritaankaasi la sameeyo laguna sameeyo arrinkan. kulanka dooda ee la qorsheeyay 22 Juun xildhibaanadu waxay ka doodi doonaan in loo baahan yahay in kale in la baaro heerka ay ururada ama kooxaha Israa'iil u ololeeya saameyn ugu yeeshaan ajandaha siyaasadeed ee Britain. Talaabadan ayaana timid kadib markii la saxeexay codsi muujinaya walaac dadweyne oo jira kuna saabsan baaxadda ay gaarsiisan tahay saameynta kooxda walaaleysa Israa'iil ay ku leedahay siyaasadda UK. codsiguna waxa uu ku baaqayaa in la sameeyo baaritaan lagu ogaanayo sida Israa'iiliyiintu u saameeyaan go'aanada dowladda Britain. waxaan dareemaynaa in burburka ba'an ee Gaza, caburinta sii socotay ee Falastiiniyiinta daanta galbeed iyo jawaabaha siyaasadeed ee UK ay muujinayaan baahida degdega ah ee loo qabo in si dhow loo baaro sida ururada shabakadaha iyo dadaalada taageersan Israa'iil ay saameyn ugu yeelan karaan go'aanada dowladda. siyaasadaha xisbiyada iyo doodaha guud ayaa lagu yiri codsigan oo ay saxiixeen in ka badan 116,000 oo qof. 17 Abriil dowladda Britain ayaa ka jawaabtay codsi iyadoo sheegtay in uu jiro hanaan jira oo lagu xaqiijinayo daafurnaanta la xiriira kooxaha Israa'iil waxaa geliya ee la xiriira dowladda Britain iyo baarlamaankaba. Keir Starmer oo ah hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha UK ee doorashada 2024 guul ballaaran kaga adkaaday xisbiga Conservative-ka taasoo soo afjartay 14 sano oo xisbigaasi uu talada hayay. sanadkaasina dowladda Starmer ayaa xisbiga shaqaalaha waxay ka heshay ilaa 411 kursi iyo sidoo kale aqlabiyad 174 kursi taasi oo ahayd natiijada saddexaad ee ugu wanaagsan taariikhda xisbiga iyo tan ugu wanaagsan tan iyo sanadii 2001. si kastaba ahaatee tan iyo markaasina waxaa hoos u dhacaysay taageerada Starmer arrintaasi oo lala xiriirinayo waxqabadkiisa ama qaabka uu wajaho arrimaha dibadda iyo siyaasadaha gudaha ee muran ka dhaliyay gaar ahaan taageerada Britain ee Israa'iil. iyadoo falanqeeyaasha qaarkoodna ay aaminsan yihiin in Starmer uu si liidato u maareeyay arrimaha gudaha iyo dibadda ee UK iyagoo ku doodaya in taageeradiisa joogtada ah ee ajandaha Israa'iil ay dhaawacday dadaalada nabadda caalamka islamarkaana ay saameyn xoogan ku yeelatay xasiloonida suuqyada ee caalamiga ah. waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socotay warbixin ku saabsan qorshaha Netanyahu ee colaadda Xisbullah kala dhaxaysa oo kasii daraysa iyo waxa khubaradu ay ka tiri dabin suurtagal ah oo Tel Aviv ay ku dhici karto kaasi oo Xisbullah colaadda Xisbullah iyo Israa'iil dhaxaysa ee koonfurta Lebanon ka socota ayaa xoogaysatay iyadoo qayb ka ah qorshaheeda ballaarinta ee colaaddaasina Israa'iil ayaa ku dhici karta dabin Xisbullah laga yaabo inay dhigtay iyadoo ciidamada Israa'iilna ay sii wadaan howlgaladooda militariga isku dayada ay ku doonayaan inay ku horumariyaan jihooyinka kala duwan iyagoo ka faa'iideysanaya aamusnaanta caalamiga ah ee ku aadan xadgudubyada lagu eedeeyo Israa'iil inay geysato shacabka Lubnaan. kadib markii ay ku dhawaaqeen inay la wareegeen qalcadda istiraatiijiga ah ee Al-Shaqiif ee ku taala buur dusha ka eegaysa webiga Litani, ciidamada Israa'iil ayaa qorsheynaya inay si weyn u ballaariyaan howlgaladooda militari ee Lubnaan. warbaahinta Israa'iil ayaana ku warantay in hay'adaha amniga iyo militarigu ay ka fiirsanayaan kordhin weyn oo lagu sameeyo weeraradooda ku wajahan Lubnaan sida bartilmaameedsiga magaalada Beirut. isla warbaahinta ayaa sidoo kale soo xigtay ilo xoogaal oo sheegay in ballaarinta howlgalada Lubnaan lagu fuliyay iskaashi la lahaa maamulka Mareykanka. waxaana qabiirka arrimaha militariga iyo istiraatiijiyadda Xasan Jooni uu rumaysan yahay in ciidamada Israa'iil ay kordhinayaan dhaqdhaqaaqyadooda dhulka iyagoo ka howlgalaya jihooyin badan islamarkaana si istiraatiijiyadeed ula loolamaya Xisbullah oo doonaysa inay sii wado cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah waqooyiga Israa'iil. qabiirka ayaa sheegay in jihada ugu muhiimsan ee ciidamada Israa'iil ay ku sii fidayaan ay tahay qalcadda Al-Shaqiif taasi oo sheegay inay bilooyin ka hor bilaabeen
qorshaha lagu qabsanayaba halka maantana ay ku dhawaaqeen inay si buuxda u maamulaan calankoodana ay ka taageen waxaana intaasi ku dareen jihada labaad ay tahay deegaanada qanduuriya loo yaqaano dooxada Al-Jayr iyo sidoo kale dooxada Al-Suluuqi halkaasi oo ay ka wadaan dadaalo lagu dhammaystirayo xakamaynta gacan ku haynta waxay ugu yeeraan aagga amniga ama difaaca jihada saddexaadna waa deegaanka Tibin oo ku tilmaamay mid leh muhiimad dejin iyo xasilin military wax lagu sheegay sida uu sheegay Junina ujeedada howlgalka Israa'iil waa in la xasiliyo waxa loogu yeero qadka jaalaha lana adkeeyo xakamaynta dhulka iyo saldhigyada ku yaala aagga difaaca Israa'iil ay ku magacowdo Benjamin Netanyahu ayaana waxa uu xaqiijiyay ama sheegay in ciidamada uu ka amray inay ballaariyaan howlgallada military ee Lebanon ka dhanka isla markaana ay adkeeyaan gacan ku hayntooda meelihii hore ay ugu jireen saameynta ay uga jirtay ama gacanta ay ugu haysay kooxda Xisbullah dhankiisa wasiirka difaaca Israel Katz ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan qalcadda Al-Faqiir iyagoo u arkaa qayb ka mid ah aagga amniga ee Lebanon waxaana qabiirka arrimaha amniga iyo istiraatiijiyadda Khalil Gemel uu sheegay in gaaritaanka ciidamada Israa'iil ee qalcadda istiraatiijiga ee Al-Faqiir iyo sidoo kale hareeraynteedaba ay tahay horumar dhinaca dhulka balse laga yaabo inay tahay dabin hase yeeshee waxa uu xusay in juqraafiyadda adag ee gobolka iyo xeeladaha Xisbullah ay ka dhigayaan xasilooni military mid marnaba aan suuragal ahayn in la gaaro amaba ay adag tahay waxaana uu tilmaamay qabiirkani in dagaalada ugu muhiimsan ee ay ka socdaan hareeraha dooxada Al-Jayr iyo sidoo kale dooxada Al-Suluuqi lagu magacaabo kuwaasi oo taariikh ahaan tan iyo dagaalkii 2006 ahaa meelaha ugu adag ee kala kulmeen jibin taangiyada Israa'iil waxaana Israa'iil ay kordhinaysaa weli weerarada ay ka wado koonfurta Lebanon iyadoo Xisbullah laftigeedu ay sii wado ridista gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku wajahan gudaha Israa'iil waxaana qabiir John uu sheegay in waxa maanta socda ay yihiin isku dhac istiraatiijiyadeed maadaama Israa'iil ay wado howlgallo cirka iyo kuwo dhulka si ay uga hortagto in Xisbullah ay sii dardargeliso weerarada gantaalada iyo droniska ay ku gudo kuna wajahan xagga waqooyiga Israa'iil oo laga qaxay badankiis sida uu tilmaamayna istiraatiijiyadda Xisbullah waa in waqooyiga Israa'iil uu sii ahaado goob cadaadis iyo weeraro joogto lagu hayo waxaana uu xusay in kooxdaasi ay howlgaladeeda ku muujisay inay weli awood leedahay una leedahay fulinta hadafkaas ay leedahay warbaahinta Israa'iil ayaana kusoo warantay in ilaa 4 qof ay ku dhaawacmeen qarax sababay drones oo ka dhacay deegaanka Beit Hillel ee waqooyiga Israa'iil sidoo kalena waxaa la sheegay in Xisbullah ay soo rideen ka badan 20 gantaal oo ku wajahnaa deegaanada waqooyiga geesta kalena waxaa jira wafdi dowladda Lebanon ka socda oo wadahadalo kula jira Israa'iil si loo gaaro heshiis xabad joojin dhammaystiran oo ka dhaqan gala koonfurta dalka hase yeeshee sida ay ku waramayso warbaahinta Israa'iil Tel Aviv ayaa gebi ahaanba iska diiday dalabka Lebanon ay ku codsanaysay in ciidamada Israa'iil ay kaga baxaan dhulka ay kaga sugan yihiin dalkaasi taasi oo qayb ka ah dadaalada dowladda Lebanon ee lagu doonayo in lagu gaaro xagga dhinaca kalena hubka dhigista Xisbullah lagu sameeyo si loo soo afjaro gebi ahaanba colaadda waa hagaag daawadayaal intaas ayaan guud ahaanba caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii maxaa cusub oo si toos ah uga daawanaysay saabeeshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xidhnaynina nagu soo biira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo